بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa halkan inaan si adag u cambaareeyo falkii waxaasnimada ahaa oo sarkaal ka tirsan ciidanka ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed uu u geystay darawal waday bajaaj runtii arrintan waa arrin aad iyo aad looga naxo shakhsiga dhibkan geystayna waa Maxamed Deeq Cabdi Aadan oo aan hay'adaha amniga amarnay in la soo qabto sida ugu dhaqsiyaha badan isla markaana muxuu ahaa sharciga la horkeeno la hormarsiiyo ma aqbali karno mana u dul qaadan karno dhalinyaradeenii bajaajka waday in muxuu ahaa macna darro ah loo dilo si kasta oo qofkaas bajaajka wado looga rabo wixii khidmada ahaa si kasta oo howlihii dawladda la rabo inay u socdaan haddana ma u dul qaadan karno mana yeelayno mana aqbalayno in muxuu ahaa dhalinyaradeenii si macna darro ah lagu dilo qofkaasna waxaan rabnaa inaan idiin caddeyno bulshada Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan in la soo qaban doono lana marsiin doono sharci isagana waxaan ka codsanaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u hor yimaado muxuu ahaa hay'adaha amniga si tallaabada ugu adag ugu habboon looga qaado waxaan mar kale shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogo gaar ahaan shakhsigii nooga geeriyooday bajaajka waday iyo eheladiisii aan muxuu ahaa leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ma ahayn in maanta oo marxaladan dalka uu ku jiro inaan dadkeenii dhalinyarada shaqo abuurka samaystay oo bajaajka waday u adeegay halbowlo lafdhabar u ah bulshada in si macna darro ay ku dhintaan arrintan waa soo noqotay mana u dul qaadan doono bacdama arrintan ay tahay arrin qof dawladda hoose ka tirsan qofkan dilka geystay waxaan ballan qaadayaa inaan horkeeni doono maxkamadda isla markaana lagu qaadi doono tallaabada ugu adag waa mahadsantihiin